xaflad ballaaran oo lagu qabtay howlka dowladda hoose ee degmada Garadag ayaa waxaa ujeedkeedu daaranaa guddoonsiinta kooxda carwo ramad oo ku guuleysatay koobkii ka socday degmada Garadag bishii barakeysneed ee Ramadaan waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada odayaasha iyo guddoomiyaha isboortiga iyo mulkiilaha kooxda carwo ramad xildhibaan cali jaamac cabdi waxaana kamid ah hadalladoodii sida tan gallo wareegeennii 8 kooxood ee seereeda ay isugu soo gudbeen waxa isugu soo haray labada kooxood ee asli maydi iyo carwo ramad waxa koobkii ku qaaday kooxda carwo ramad xildhibaan kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka waxa weeyaan xildhibaan cali jaamac cabdi oo run ahaantii shakhsi ku suntan isku xidhka dhalinyarta mideynta dhalinyarta iyo taabagelinta xildhibaan cali jaamac cabdi waa xildhibaankii ugu horeeyay ee noqda mulkiile kooxeed oo kamid ah xulalka degmada Garadag mulkiilaha ramad cali jaamac cabdi oo ay sababta lahaa in koobkaasi qabsoomo marka labaadna waxaan u mahad celinayaa yaasiin yuusuf ismaaciil oo agabkan maanta horteena yaalla keenay ninka oo dhalinyaradii isboortiga waxaan sanad iyo laba aan ka siimay degmada Garadag kartay ku celi degmada waxaan kaloo halkan marka la yiraahdo sport dawadiisa ugu weyn hadda taagan aynu arki karno waxa weeyaan afooyinka ka jira iminka dunida waxa weeyaan tahdiidta haday tahay fawaaxishaadka kale haday tahay dagaalada haday tahay intuba waxay ka dhashaan dhalinyaraduna markay waqtiyada aanay wax baranayn in la maladaaliyo oo laga taageero waxyaalaha ay magaranaysaa iyagu niyadooda ku hayaan waxay la tahay waa qodobka ugu muhiimsan lagaga bixi karo duruufaha hadda jira tusaale ahaan hadeer waqtiyadan dambe dagaalada dhaca ma dhamaadaan sababta u dhamaan waxa weeye dadkii waa wada bilaa camal dadkan bilaa camalka hadii dhulka lagu faagi lahaa waxa laga yaabaa heshiin lahaay oo wax loo shaqo qaban lahaa dhalinyarada lamida iyana dhulka ayna kaga maqan ama joogaba way idin furan tahay inaad ka qayb qaadataan horumarka degmada maaha kaliya in sportka kaliya maaha waxyaalo badan baa loo baahan yahay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan dhalinyaradaydi farxadda la qaato rabadaanta koobkii rabadaanta oo aan guddoonsiiyo koob agabkan qalabkan sportska kaasoo aanay ahayn kii ugu horeysay ee ay jiraan qalabo badan oo soo socda oo aan guddoonsiin doono insha Allah hadii la la sii dardaarmaya gudoomiyaha sportiga oo asaguna qayb weyn ka qaatay sida sportiga loo dhisi lahaa ilaa intii sportisku jiray maayirka degmada xildhibaanada intoodan waxaan kula dardaarmayaa inay sportiska gacan weyn ka qaataan bacda salaan maanta waxaynu halkan inoo ku soo gabagaboobay koobkii rabadaanta oo ay ku tartamayeen 8 kooxood waxa markaa isugu soo haray tartankii wuxuu soo socdaba finalkii isugu soo baxay labada kooxood ee asli maydi iyo kooxda ramad guushii markaa waxay ku raacday oo koobkii ku guuleystay kooxda ramad leenahay kooxdii kale laga guuleystayna iyaduna way guuleysatay oo kooxda kale way la guuleysatay maadaama ay u haniyeysay waayo waa tartan markaa midina ma dhicin waxa weeye labadeena kooxoodba way noo guuleysteen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin tartankaasi wuxuu ahaa tartan aad u nadiifa aad u wanaagsan aan xamaasadiisu ay aad u sareyso si weyn looga soo qayb galay indhaha bulshada reer Garadag ee degmada reer Garadag kulmiyay dhalinyaraduna aad ugu heelanaayeen waxaana inoo soo qaban qaabiyay isaguna mahadiisa la Ilaahay ka sokow yaasiin yuusuf ismaaciil oo hadda halkayna la fadhiya isagana waxaanu leenahay Ilaahay ka abaal mariyo marka sportigeena wixii gacanta ku hayay ee awalba maaragtay taageerada inala dul taagnaa ee habeen iyo maalin maaragtay sportigu inuu dhismo inuu hagaago inuu shaqeeyo koobkii kala duwanaa soo qabtay wuxuu maayirkeena degmada oo hiliyo hooba inala garab taagnaa inta koob uu soo qabtay intii rabadaanta ka horeysay waa garanaysaan waxa weeye sportiga aad iyo aad buu maayirku u garab taagan yahay markii joogitaanka aynu joogno gabagabadii finalkii koobkii rabadaanta oo soo dhamaaday oo ay soo tartameen sida la sheegay ilaa 8 kooxood ay finalkii u soo bixeen sida la sheegay 2 kooxood labada kooxood runtii horta cidii ka soo qayb qaadatay oo mahad celinayna ee soo ciyaartay iyo intii daawatayba ku dhalinyaradan u soo baxnay labadan kooxood ee finalka la guuleystay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan aad ugu mahad celinaynaa
ninka dhalinyarada ah sportiska ah bahda sportiga ah gartay in marka koobkii la qabto rabadaanka finalkiisii inuu keeno agabkii lagu kala gudoomi lahaa koobka iyo alaabta wanaagsan iyo biladaha iyo waxaas oo dhan inoo keenay inuu gudoonsiyay aad baan ugu macdanaynaa ka dhalinyarada runtii waxa weeye maskaxdiisu furan tahay idin kamid ah idinku buu idin kamid yahay ama inagu inaga mid yahay yaasiin يوسف إسماعيل عبد القادر صلاة جامع بلوشة في دقمة Garadag